kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibna janaalkeena xanta wararka habeen wanaagsan meel kasta dunida aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan caawa qodobada wararka ugu waaweyn Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa kamid ah ciidamada dalka Djibouti oo la wareegay dhammaan xafiisyada maamulka gobolka Hiiraan iyo xiisad wali ka taagan magaalada Beledweyne madaxweynaha Hiirshabelle oo si degdeg ah ugu laabtay magaalada Beledweyne iyo banaanbaxyo asaga ka dhacay maanta magaalada ka dhacaya maxaad kala socotaa xiriirka qarsoon ee u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba ciidamadii daacadu ah wadaadka dawladda u xiran ee Mukhtaar Robo Abu Mansour madaxweynaha Soomaaliya oo soo fargeliyay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne iyo madaxweynaha oo guddi arintaas u magacaabay dawladda Kenya markii ugu horeysay waxa ay shaacisay xaqiiqda tirada askarta loogu dilay weerarkii ka dhacay Ceelcadde wararka Soomaalida ka baxsan warka waxaad ku daawan doontaan Xuutiyiinta oo gantaal culus ku dhuftay Sacuudiga iyo qasaare ka dhashay u diyaar garooba qodobadaasi kuba kale oo aad maqli doontaan oo qayb uu ka yahay madaxweynaha Galmudug Xaaf oo si degdeg ugu ambabaxay magaalada Nairobi halkaas la qorsheynayo inuu ka bilowdo shirka madaxda maamul goboleedyada daawada haddaad ku cusubtahay janaalkeena fadlan subscribe dheh qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada waxaan gudagalaynaa warbixinada la xiriira arrimaha Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaan eegi doonaa halkaas oo xiisad ay ka taagan tahay xiisadaas waxay ka dhalatay markii xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan kadibna uu diiday inuu xilka wareejiyo magaalada waxa ka dhacay banaanbaxyo shalay waxa magaalada ka dhacay dagaal sababay inuu dhinto taliyay qaybta booliiska sidoo kale maanta waxa la sheegayaa in magaalada qaybaha ugu muhiimsan ammaankooda ay la wareegeen ciidamada Djibouti warbixinada aan dul istaagi doonaa waxa soo hormaraya xaaladda Hiiraan iyo ciidamada Djibouti oo guud ahaanba gobolka la wareegay wararkii ugu dambeeyay ka helay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxay sheegeen in xaalad kacsan wali halkaas ay ka jirto kadib markii shaqaaqooyinkii shalay ka dhacay magaalada taas oo sabab u noqotay inuu dhinto taliyay qaybta booliiska gobolka waxa la sheegay in maanta ciidamada Djibouti oo amisom qayb ka saldhigooda ugu weyn ku yaalo gobolka Hiiraan inay la wareegeen meelo badan oo ka tirsan magaalada gaar ahaan xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah ee maamulku ku shaqeynayay wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa amisom gaar ahaan kuwa dawladda Djibouti ay soo fargeleen xiisada ka taagan magaalada ciidamada Djibouti ee amisom ayaa la wareegay maanta xafiisyada maamulka Hiiraan oo dhowr maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaayeen ciidamo ka amar qaata gudoomiyaha xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo diiday qudhiso in xilka wareejiyo albaabka hore ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa lagu arkay ciidamo badan oo Djiboutian ah kuwaas oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka culus waxa magaalada Beledweyne ka jirta xiisad ka dhalatay xilka qaadista madaxweynaha Hiirshabelle ku sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed shalay dagaal qasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne kaas oo dhaxmaray ciidamo kala taabaxsan Yuusuf Dabageed iyo waliba ciidamo ka marqata gudoomiyaha cusub waxaana magaalada wali ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadista Dabageed xiisadan ka taagan magaalada Beledweyne ayaa waxay salka ku haysaa xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo diiday in xilka uu wareejiyo ciidamo badan oo taabacsan Dabageed oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkay bartamaha magaalada kuwaas oo dhaqaaqyo ciidan ka wada waxa la ila xogaal ay noo sheegeen in gudoomiyihii hore taageero badan uu ka helayo dadka shacabka iyo waliba odayaasha waxgaradka ay ku beel ah oo magaalada ku sugan kusmaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Guudlaba ayaa tacsi u diray ama ka tacsiyay geerida ku timid taliyay qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe Maxamed Macow kaas oo lagu dilay iska horimaad ka dhacay Kalabeer ee duleedka magaalada Cali Guudlaba ayaa ku amray ciidamada ammaanka in ay gacanta ku soo dhigaan cid ka dambeysay dilka taliyahaasi la toogtay sidoo kale waxa uu ku baaqay odayaasha iyo waliba waxgaradka gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu ku baaqay odayaasha iyo waliba waxgaradka Hiiraan inay ka qayb qaataan howlgalka nabadda iyo waliba xasiloonida gobolka haddaba ciidamadu saas ay tahay ayaa dhinaca kale waxa safar aan hore loo sii qorsheeyay si degdeg ah magaalada maanta waxa ku gaaray waliba gilinkii dambe madaxweynaha Hiirshabelle iyadoo magaalada ay ka bilaawdeen banaanbaxyo asaga ka dhanaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si degdeg ah ugu laabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay wasiiro iyo xildhibaano iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Cali Maxamuud Caraale
dib ugu laabashada madaxweyne Waare magaalada Beledweyne ayaa dhowr maalmood ka hor safar dalka Kenya kaga ambabaxay kuna sugnaa magaaladaasi ayaa dib u laabashadiisa waxa ay keentay kadib xiisada magaalada ka taagan markuu soo laabtay magaaladan waxa ka bilowday banaanbaxyo asaga ka dhan oo dadku ay dhigayeen ama ay kaga soo horjeedeen dadka banaanbaxyada ayaa taageero u muujinaya gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo aad moodo in taageero badan uu ka haysto dadka ku nool gobolka shalay dagaal qasaare geystay ayaa duleedka magaalada Beledweyne ku dhaxmaray ciidamo kala taabacsan Yuusuf Dabageed iyo ciidanka ammaanka ee Hirshabelle xiisada ka taagan magaalada Beledweyne waxay salka ku haysaa xilka qaadista lagu sameeyay Dabageed oo kaas ugu dambeyn uu diiday in xilka uu wareejiyo haddaba xiisada ka taagan halkaas ayaa dhinaca kale waxaa soo farageliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa guddi u saaray sababta keentay in dagaal shalay uu ka dhaco duleedka magaalada Beledweyne kaas oo ku dhintay dad uu kamid ahaa taliyay qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan guddigan ayaa waxaa gudoomiye looga dhigay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe waxaana qayb ka ah xeeralyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadana guddigan ay baaris ku sameyn doonaan waxa sababay dagaalkaasi guddigan ayaa baaritaan ku sameyn doona sababta ka dambeysay iska horimaadka shalay ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne gaar ahaan deegaanka Kalabeer guddigan ayaa la filayaa inay kormeer ku tagaan magaalada Beledweyne isla markaana baaritaan xaqiiqda ah raadin ay ku sameeyaan dhacdadii shalay ka dhacday iyo sababta keentaba in taliyaha qaybta booliiska gobolka uu geeriyoodo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddigaas oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in guddiga uu u madax bannaan yahay iyo waliba xeeraalinta maxkamadda in si dhab ah baaris ay ugu sameyn doonaan sidii loo xaqiijiyo waxyaabaha keenay dagaalka halkaasi ka dhacay iyo sababta keentaba in taliyaha qaybta booliiska gobolka halka uu ku dhinto xiisada ka taagan magaalada Beledweyne waxay salka ku haysaa xilka qaadista gudoomiyihii hore walina ay ka taagantahay magaalada sidoo kale waxaa xaaladu ay sii cakirantay markii maanta magaaladaas uu gaaray madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare waxaana ga xasuusina waxa la wixii ku soo kordhaa xiisada Hiiraan ka jirta iyo waliba rabshadaha halkaas ka dhacaya isla channel-ka YouTube-ka inaan kugu soo gudbin doono macluumaad walba oo ku saabsan arrimaha Hiiraan qaybaha kale ee wararkeena ku jirana daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha Galmudug ayaa safar degdeg ah waxa uu ugu ambabaxay dalkaasi Kenya magaaladiisa Nairobi madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta u ambabaxay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya madaxweyne Xaaf ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku sii sogotay xubno kamid ah maamulkiisa Galmudug socdaalka Axmed Ducaale Geelle Xaaf ee Nairobi ayaa ku soo aadaya xilli la qorsheynayo in magaaladaas uu ka dhaco shir ay yeelan doonaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ee dalka ka jira kuwaas oo la kulmi doona wakiilada beesha caalamka sidoo kale inta uu Kenya ku sugaya madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu la kulmi doonaa ama kulamo la qadan doona hay'adaha danaya arrimaha Galmudug gaar ahaan mashaariic la doonayo in deegaanada Galmudug laga hirgeliyo waxaa la tilmaamayaa in arrimaha ugu waaweyn ee shirka madaxda maamul goboleedyada Nairobi kaga hadli doonaan khilaafka siyaasadeed xilligan kala dhaxeeya bila Soomaaliya iyo waliba mashaariic badan oo la doonayo in deegaanada Galmudug laga hirgeliyo oo madaxweynaha Xaaf oo si shakhsi ah kala hadli doona madaxda halkaasi ku shiraysa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta waxa Muqdisho tababar u soo xiray ciidamo cusub oo loo diyaariyay inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa tababar u soo xiray xerada Janaal Gorod ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya loo diyaariyay howlgal ka dhan argagixisada inay ka xoreeyaan deegaanada ay ku dhumaaleysanayaan ra-iisul wasaaraha oo ciidankan ugu tagay kula dhiirigeliyay shaqada ay qaranka u hayaan ayaa ogaaday baahida iyo waliba qalabka ay u baahan ciidanka wuxuuna sheegay in wax walba ay la garab istaagsantahay dowladda federaalka Soomaaliya lana sii doono qalab iyo waxyaabo ay ka howlgalaan ciidanka ayuu ra-iisul wasaaruhu u ballan qaaday inuu xaquuqdooda si joogto ah ay u heli doonaan dowladuna ay si gaar ah u xil saari doonto baahiyaha gaarka ay qabaan ciidamada qalabka sida loona dhameystiri doono wax walba ay u baahan yihiin dowladda Soomaaliya oo ciidankeeda ku sameysay dib u habeen ballaaran ayaa waxaa la qorsheynayaa in ciidankani ay Al-Shabaab ka saaraan Daacishba qaybo badan ku sugan koonfurta ee bartamaha Soomaaliya ciidankan ayaa u muuqda kuba tababarkooda dhameystir loona diyaarinayo howlgal ka dhan Al-Shabaab oo la doonayo in laga sameeyo meelo badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya qibihii dambe ee wararkeena ayaan soo gaarnay qodobada kale ee wararkeena ka harana waxaa ku jira
wax badan miyaad ka ogtahay xiriirka qarsoodiga u dhexeeya Mareykanka iyo ciidamadii daacad u ahaa wadaadka Mukhtaar Robo Abu Mansuur kaas oo dowladda federaalka Soomaaliya u xiran warbixintan ayaa si gaar ah u eegayna deegaanka Dhambaal oo dhowr kiiloomitir u jira degmada Xudur ee gobolkaasi Boqol waxaa ku sugan ku dhawaad 500 oo kamid ah askar ka tirsan ciidamada Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo 2 sano ka hor isku soo dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya ciidamadan aad u qalabeysan ayaa wali ku sugan furmaha dagaalka ama jiida hore aaga dagaalka kuwaas oo sameysay 10 sano ka hor Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur kadib markii uu al-shabaab iskaga soo baxay iskiisa janaalkana ayaa waxa uu ogaaday in ciidanka Abu Mansuur ay helayaan taageero caalami ah oo dhan kasta taas oo u fududeyn karta in ay ku sii jiraan difaacyada adag xitaa hadii la xiro Abu Mansuur oo ah hogaamiyahoodii ee la soo go'een baaritaan dheer oo ay sameysay janaalkana ayaa waxaan ku ogaanay in ciidamada Mukhtaar Robo ay gacan ka helayaan ciidamada Mareykanka isla markaana ay siiyaan wax kasta oo qalab ah ay u baahan ciidankan oo ku sugan duleedka degmada Awaaj ee gobolkaasi waxyaabaha ay sida joogtada ah u helaan ciidamada Abu Mansuur ayaa waxa kamid ah mushaar ku filan qalab ciidan iyo agab ku filan sidoo kale ciidamadan ayaa waxa laga caawiyaa dhinaca xogta iyo hadii ay wajahayaan dagaalo qatar ah oo dhanka al-shabaab kaga imaanaya xogta kale aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaha Mareykanka iyo waliba taliska qaaradda Afrika ee Mareykanku oo amar uu ku bixiyay in la difaaco hadii weerar xoogan ciidankaas lagu soo qaado hadda maysan ugu horeyn in Mareykanka uu taageero ciidamada Abu Mansuur balse waxa ay warbaahintu ay ogaatay in sanadihii dambe ay Mareykanku si joogto ah caawinaad u siinayay ciidamada Abu Mansuur ee uu la soo goostay ku sugan gobolada Soomaaliya ugu dambeyn xuutiyiinta iyo marka dagaalantan waxay gantaal ku garaaceen dalkaasi Sacuudi Carabiya qasaarayana ka dhashay wakaalada wararka ee Sacuudiga SPA ayaa sheegtay in isbahaysiga militariga ee Sacuudiga ay xaqiijeen in 26 qof oo ku dhaawacmeen gantaal ay militariga xuutiyiinta ay la beegsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Ahba ee gobolkaasi kaas oo qasaaro badan geystay gantaalkan ayaa Sacuudiga waxa ay ku sheegeen in ay ku dhaawacmeen 26 ruux oo u badan rakaab u dhashay dalal kala duwan kuwaas oo xilliga ku sugnaa garoonka la weeraray afayeen u hadlay isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayo ayaa waxa uu sheegay in gantaaladan ay soo tureen kooxaha xuutiyiinta qasaaraha ugu badan uu soo gaaray dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa oo raacaya diyaarad dhinaca kale telefishinka Al-Masariya oo ku hadla afka militariga xuutiyiinta ayaa waxa uu saacadihii ugu horeeyay saaki baayay in gantaal noociisu yahay nooc kuwa casriga ah lala beegsado garoonka diyaaradaha magaalada Abba ee dalkaasi Sacuudiga xuutiyiinta Yemen ayaa kordhiyay weerarada ay ka geysanayeen gudaha dalka Sacuudi Carabiya hase yeeshee weerarkan ayaa ah kii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca gudaha dalkaasi Sacuudi Carabiya madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu aad Sacuudiga u siinayay hub casri ah si iskaga difaacaan weerar walba oo kaga yimaada kooxaha xuutiyiinta guud ahaan wararka aad ka daawanaysan janaalkan xanta wararka saaxiibayaal caawina halkaas aan ku soo gabagabeynaa daawada hadaad ku cusubta janaalkan subscribe qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada